wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenan oo aanu ugu magacawnay hal adeeg waa barnaamijkii ugu horeysay ee TV-ga qaranka ka baxa tan iyo intii aanu ku talaabsaday TV-ga qaranka iyo wasaaradda in ay si dimuqraadi ah dhammaan afkaarta ashqaasta siyaasiga dhaqanka dhaqaalaha arrimaha bulshada intaba si loo sameeyay in ay iyagu ay soo bandhigaan taasi oo aanu isagana ku amaanayno Faysal Cali Waraabe inuu yahay siyaasiga ugu horeeyay ee aqbalay ee ashruuda nagu xiran ee waqtigii uu noo qabtayna isagu nagula عادل موقعي وقاعد فيصل آدي أتبع حاجة ما هدينا لنا وحنا نشعل هاي بالمانتا إلى أن كويدينو بالواحد نوجور أنت جودها حالة جود بريق أفريقيا ويا واحد لين أضو متروبوليتان بعتي معها لين بالهذا نوجور حالة جود بريق أفريقيا مانتا تينا الجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورتمرك إلهي المحضن سبحانه وتعالى إلهي أو المحضن إلهي نبدأ نسير رحمتك إنه قدري إلهي وما هالنقم horta waxa weeye geeska Afrika oo dhan ma haysto adduunka oo dhan maanta waa xisbada weyn baa ku socda oo doorashada la doortay Trump iyo dagaalka ka socda Ukraine labada saameyn weyn bay adduunku yeelatay inagana geeska saameyn bay nagu yeelanaysaa waxay naga intaa inoo dheer maalintii aynu madaxweynaha Soomaaliland Muuse oo MAU saxay waxa kacay cadawgeeda oo dhan baa kacay qaarna aan noodinay magaranaysaa inay noo wanaagsan yihiin ayaa iyaguna marada iska qaaday go'aankaas oo ahayn go'aan aynu wada dhameen sidii kii 2012 kii marka la Soomaaliya ma la hadlaa bergiisanayo oo nashiriyay saddex cusbi oo daba marka jiray marka asxaabta intana qabiil isku bedelin ayaa yiri arintaas ay ka soo taliya saddex qof baa noo saaray madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa markaa nashir gareynay talaano keenay taladii ma ka qayb galay لكن مسبحي كيون إدنا لا تشان أيو توسكي قانكي أنا نقف كي أوريسو دويانها لأنه وحنا أورنجرين إنجليزكو ويصببها هذا صار له سبحان كم طبعا كل شيء ده وحنا أورنجرين إنجليزكو إثيوبيا وحنا أورنجرين إنجليزكو وحنا أورنجرين يوروبيا وحنا أورنجرين كيس كان هو كيس أفريقيا هذا أفريقيا نجوهرية أفريقيا نجوهرية then we will follow لورت أفريقيا كشقي أنا إسبيش اللي بكون يا أفريقيا تونك وحين إنجليز يدري اسمع عمر قالي ويبغى كاسو مالين كاسو ما يسترى مركي ويل إثيوبيا ودكي وينا أفريقيا حرمتي سؤال تري واحد دون إنه حسوي درسنا سياسة دبدو ودنت دلكاكا دنتيني به احنا قاعدين إثيوبيا إما هو ونسكت عنه جامعات كستو تكتيد بروفيسور باكر اسبتال كسو جرتا وحجر إثيوبيا قفك حنوسا إثيوبيا وتقع dadkeenu Itoobiya degan waa isku furanay marka ayana ictiraafto iyaguna saa Djibouti yar inta soo beys baa jira ay beys ku ilaashato wixii maraakiibteeda iyo cuntadeeda ay yeelato oo meel qura isku haleyn rarsiga xaq bay u leedahay inaguna inaan ictiraaf helo xaq bay u leenahay marka wax isweydaarsi baa laakiin go'aankaas dawladdu kama shaqeyn oo soo saaxay Muuse iska fariiseen gudaheen buu ka shaqeeyay dagaalka dhexdeena cadawgeena meel ka sii tageen meel ka sii ragii haddana ku kala qaybsamay waxa jira xusbiga wadani wuxuu tagay Itoobiya wuxuu yiraahdaa anaga soo baxayna hasiixina markaas wixii Muuse ka doonayseen in helinaay waayahay hortay kaadi xeel weysay
وما دوين وحلو شيء صح بوليس سيما كلمية قدام يا دولة بوليس كي نور دير مركا وحوي from that day on dagaalkaasayna horta galay ayaa inagu socda waxay noo raacaa Taiwan buu haddana inuu ixtiraafay Taiwan waxaa ka soo jeeda China oo fiito leh imaka Kosovo waa 90 wadan baa ixtiraafay UN ma fadhido maxaa u fadhiisan weyday hoos baa fiito saaray inaga bal haddayna wadan ka yar taawad ka weynaysan maxay noo qabatay wax ma weydiisanay ilaa dhowr toban wax bixin jirtay scholarship qabiil baa lagu bixin jiray NGO baynu ka dhigan labada arrimood uu Muuse qabtay administrationkiisa labadaba dhibaatada maanta ina haysata ee cadaawada ina haysata oo inaguna aynu ka hortagi weynay ay horta ina haysata oo inoo dheer caalamka ka taagan aqoon macaawadii baa la joojiyay arkay USAID-kii ayaa la joojiyay marka horta adduunka dhibaatadiisu inaga taasay inoo dheer waxa kamid ah waliga oo dad badan loo ila daawanaya la ay kaga marxatiyiin inaad ixtiraafka tan iyo maalintaas hala qaaday adkaalin weyn ka qaadatay nabadeyn waxyaabo badan sidii wadanka loo ixtiraafi lahaa maanta waxa uu marayaa sidaad u aragtaa qudhaadu waad ka hadashay oo had iyo jeer matalan dawlado badan ayaa inoo soo heemay qudheena adoo talooyinka ka bixin doona sidaad u aragtaa bal hadda maanta ictiraafka iyo arrimaha la xiriira doorta ictiraaf min qofna afka ku qori maayo الله يسكت فريها إلى هذا كويس سبحانه وتعالى الدين تيار وقالنا سبها أشهد أن لا إله إلا أشهد محمد رسول كريد لقوا ما قالوا شناده تعب على وقرا لأنه تعب نقوم مفضل إنك تعب نقوم مفضل international بتشيء سوى كم مقنعي لابد دولة موسى إلى تنمانتا وين كم مقنعي يبغى ميك سوي قليلا إمك maanta oo dambaysa bale waxa loo fasaxay qoradan khartumayana SSC ina Somali stabilization funky la siiyo wala macaamiliya xaq baa u leeyihiin mar haddii anagu markan Soomaaliya aan ka goosanay inoo wala ictiraafso la inoo macaamili jiray hadda iyaguna meesha jeeyeen nabad ka keeneen iyo deganaasho de waxa weeye xaq baa u leeyahay la siiyo adiga ku xidhan inaad taas ka dhicin oo agtaada maamul kale ka hirgelin oo stable in waad sheeganaysaa way Faisal Xamse markuu yiminay aad baad uga hadashay adigu iyo arrinta maxaabiista bal consequence-ga in ay keeni karto maxaa kamid ah maxaabiista bilaashar ana ku sheegaya guul darada inaga dhacday baasharoonta boshacade يا تنوى قول درادي الله بعدين ودعده وهيوميليشن كي الله بعدين يلا حسن شيخ he's very smart لأنه إنه قال لي عيار قريني وحي أنا نيش أنا بتكلم يلا وضو أنا حكومة دول كيجيني أنا اسمه كينيا محابيس سو كالدينيا ما وحي كتصي إنه هاد يديك وحي كتصي إنه ما يشاء الله وده إنه ودلكي وحكومة شو شيء جيني إنه نحوان وهرد كشيء مكان سوي بهندنا خشلا عيبته نقول عليه ودريس كيس وبقليه تاسو قوانين الدولة دي كسور جدا أو ور فيصل إن أي محابيس إنه كلا قيمسه وأي حتى قولوا أن لا اعتراف له أي واحد وير فرق كلاسكو إلى يكون جير إما كمحابيس تاني مقاضي تبي تروح وجاي حمر وحوير تاسبيالي العادي قام البوليتيكال ساينس كي وحيق عليه ما الخلل الحين يسون كله وحن كوي وحو شيغين إنه الحكومة وسومال وحكومة أي عضات دولته وكل سعودي دولته وكل سعودي غيره وكل سعودي ده ورا تدقيسا هسيدين ما كعراس وين وحي جيران كل شيء هذا هو هو كل شيء دليل لكن ده ما waxaan ku sheegay ninkan iskamu imam baan ku yiraahay
iskuma haddaan iman ciidamadeena og jooga umay ogolaadeen haddii marka ay ku dhaqaaqaan nabadgelyo darro soo may dhacdeen oo nabadgelyada waddankaagii baa oo nabadooda oo marka nabadooda ku haysataa maxay tahay dhulkaagii baa la haystaa xuduudda sheeganaysa la haysataa xuduudaadii baa la haystaa oo maamul laga sameeyay nabad bayna ku heli kareen oo nabad wax lagu helaa waxa lagu helaa markaad strong tahay you will be respected oo baa lagu keenay haddana waxa loo socdaa in ceergaba la qabsadee ma nabad baad haysataa faysal sidoo waa aragtaa bil ciidankan la qarameeyay ku dhowda مثلا ciidamada madaniga adan waxaan hor u sheegay hal qarameeyay musabbixi qaramee baan ku nir horta ciidamadan waxa keenay baahi reer ismu keenay hadii ciidamada Soomaaliya joogan qurulugad oo difaacaya dhulka Soomaaliland deemay sameeysan hukumay qaataan beelo ma qaadan waxay ahayd in meeshan horta marka hore leey wala qarameynaya in barnaamijkii lagu qarameynayay madaxweynuhu intuu geeyo inuu u geeyo dadka 20 intan qof la diro midba ra'yi qabo oo kala wada ajenda ah way misiir gareeyay dadkii midba waxba dadka u sheegay dadku wuxuu qaatay in la dhisam garanayo waxay ahayd in nimanka meeshooda maalinta aanu sheegay meeshooda lagu qarameeyo guuta la gariyo hala hoos keeno taliyaashu aan noqdeen taliyaashii ciidanka Soomaaliland aan noqon qabiil kuwa magaalada jooga ceergaabiyo jooga horta hala galay tababarka la galay ma kuwaas ka soo baxaan bixi baa la geeyay kuwan kale aagoodi baa la geeyay dhageysahay waxaan ugu dhameeyay waxaan hadda bixi la geeyay furantii baa laga soo qaado wax la geeyay bixina furantii yaa jooga ciidanka qaranka ayaa lagu wareejiyay oo ciidanka qaranka jooga ceergaawaayo laba guutaa joogo من تضباط باوي قوتدي كسر والله وحي هرجيسو جوgo laga qaaday war guutooyinka lagu sheegay ma guutooyinkii caadiga waa 7 qof kamal doystii baa wal qaaday hadda waxa ku sheekaysataan baragti baan ku sheegay waxaan ku ciidanka Soomaaliland 22 musabbixin waan ku wareejiyay 6 kuna ma gaadhaan wada caagli maanta miyaa guusha ugu weyn laga gaadhno inaan gabigoodaba laga qaadayo tirakoobka ma way fiicanta in la tirakoobka sidaad u aragtaa tirakoobka ana ku leeyahay caaglayaasha joojiya ana soo arkamaysi ma guulahayd wax guulayda guul waxa la yiraahdaa marka guul keentide ciidamadeedii maanta digital gareynaya de guul ma waa shaqo ku taala it's your job ay ku leedahay appreciation ma waa shaqo isku bogaadeen ma waa shaqo ku taale la shaqo cali waajib baa ciidamadaadii oo lagu digital garee oo ogow inta shaqaynaysa inta dhimata waa it's your job وانت كوباي مدن عقال اللهم خلص aniga imaka uu ku dhaqaaqay markuu dhameeyo ilaa ciidamada intaasay noqotay wana register gareeyay markaas aan odana guul weey wixii uu under laakiin beelka inaad si qodado ereyada soconaya waxaa qof waxatay waxaan ku yiri ma bilow way fiicantaan ku yiri laakiin marka ay dhamaato imaka inta og wax ka dhamaatan qodada talooyinkaaga waa loo baahan yahay oo waxa weligaaba adigu si kasta laakiin talooyinka dad badan oo la dhageystay wixii jira waxaan ku yiraahdaa maanta hawsha inoo taala ciidamada la iskrin gareynaya way ka weynta this is very minor hawsha inoo taala wala inagu wareegaysan yahay maanta hawsha inoo taala wala inagu wareegaysan yahay talana ma haysano شعبي أنا كم هذا يصنعي تلا قررنا أن ما نتنا مدحوينه برنامج كاسو وضعي عن وذلك الجود دفاعية وأرماد دي بدل تاعي يعني هوسك قال ما هينو إلا يوم أنا تنا ينتون كي إنه بعفر السنة إنه ندي ذلك إنه ولا صنعوني أو إنه كده واغني دي من سكول صنعونه نحن نروح معدنين هينو ونكسر مانين ما أنا كسر وحين سكول جلنا ولا كورنية ولا كورن ما شنطة سنة مين وليني واربار محوا دستور كينن وحنا كنا نديبو ايغون ريفورم قرينو ولي ما نري لكن عديه بخينا برلمان كله كردين دولين الى وين اللي كنا ورت waxa دستور كاga hagaajisatay دستور كاga in hagaajisatay bal imaga xayo kugu taala 30 sano ha furto guurtu waxay kugu taala guurtu hay isdhaxasho waxay kugu taala guurtu 30 jira galo
waxay ugu tahay guurta dad waa ha galeen waxay ugu tala nin aan xusbi gelin on doorsho gelin ha yeesho dhegeyso wariya ha yeesho in xildhibaano ha yeesho waxay ugu tala guddoon baa jiray guddoomiye baarlamaan baa jiray shir guddoon xay ugu tala Faysal baaba la leeyahay aan dadka qaar aragtiyaha war waxa iska dhaafayso waxa la leeyahay war dhayso waxa ka hor dalka in la hagaajiyo haddaan dal hagaajin ma guurta noqon jiraysa hay'adda aragtida ka laga qabo dadka waxa uu sheegay ilaa war anu dadkan waxa dantay waxay ku jirtaa guudba ku jirta dantaada Soomaal ku hagaajin gawartamay Soomaal horta si loo hagaajin lahaa iyo mushkilada in hor yaala sheegay soo ku hagaajin mushkilada in hor yaala hadda horta aanu xalino maxaynu ku xalinaynaa bal maanta Ilaahay baan ku dhaariyay adiga ma waxbaad xasuuqday adoo lagu xasuuqay yaa kii ku xasuuqay leeyahay waa xasuuqday Soomaal aragtay si qurux badan tahay laas ano ya quruxa keenay inaga dhisnay $2 milyan ba ku dhacay isbitaalka ku baxay DNA testki baa yaala ma yaala baaleeyna isbitaalkooda adiga lagu xasuuqay baa lagu leeyahay maanta waxbaad xasuuqay way go'aan kalimka dawladda xukuumadda wada hadalladii Soomaaliya ceebtu weed maanta dhacday go'aankaas wada hadalay noo socdaynaga Soomaaliya imaka adduunkiina ictiraafiyay shaki baa geliseen لأنه أننا دايلوج دبلوماسي دايلوج إيه الصومالي دجال بينه كل جرنابه حقوي نقول سعودي بل واحد إيش يكتها بل واحد إيش يكتها بل واحد إيش يكتها أنا ألف قيمة كذا يكتو واتي وحلوه كذا كعي وهرتو تأسي وحبة كده بي صوتن الأسعار الصومالي يكون صوت دوشي إيه هو تصاع وصي صوت كم فقيه كل دجال يقول له وعونية خد هذا ما كان الصومالي أفرزه بحياتي 2000 maxaynu ka macaashna Soomaaliya lagu ixtiraaf wax lagu joojiyay markii ay qoloyin laga tirsan ay meesha keeneen iyo qoloyin maxad ka macaashay waxa laga macaashay Soomaaliya waa lagu ixtiraafay ku meel gaar baa adduunka waxay ilaahay waan isku taginayaan ixtiraaf dawladihiina ixtiraafay maalinta dib u wada noqdeen ma ku riyaal joogay labiyo 2000 kii khasaarihii in gaaray ayaan hadana sii wadnay waliba ya go'aanka maanta waxa ka fiican too ilaha Soomaaliya declaration of war been ugu qaaday waan annaguna waan u diyaar baan u nahay laakiin waan wada hadli jirno hadalaa noo socday shacabka Soomaaliya ma ogin hadalaa noo socday aniga wax nagu doonay Djibouti oo dabaysay oo lagu kala kacay oo dawladii u tagtay in ay tagtay MAU soo saxday oo halka ku dhamaaday wada hadalay laakiin ma ilma hadda wada hadal Sacuudeen oo hadda dawladda hadda aanu joojinay waa anada sad baa kale ruuc cadaa siyaasadeed baa tahay oo waliba tahay waxa doonaysa ruucagay waxa wixii jira diinisa waxa doonaysa inaan guul wadayo ma guul wadal mise talooyin baa laga rabaa waxa weeyaan talooyinka national tala qaran baad waligaaba oran jirtay hadda talada laga rabaa maanta dhaleecaynun ka dhaleecaynun la soo taagay hadda ma dhaleecay baan sameeyay horta aan wajalin kuma wajalin dhaleecan ma jirto waxaan ku yiri wixii qaldan baan ku sheegay صح wixii qaldan baan ku yiri maanta in la yiraahdo wada hadalkii waan joojinay oo dadkeena ictiraafiyay arkaan inay qalad ku socdeen oo dad wada hadlaya oo wada hadal u socdaan ay doonayeen in ay kala jaraan taas waa ceeb bay noqotay أنا واحد لو أجي ورنا اعتراف كنا سوينا لابد دلبان وكلا نهاي دلكيجا وانو هايسنا MAU كنا وانو ساحنا بهاد لكن الدبلوماتيك زبان نو سعودي يود هذا لا نو سعودي تدبر الرئيس وما له يابسين horta waxa weeye waxaan doonaynaa inuu shar wada tashi qaran madaxweyne kula waaqo shir wada tashi qaran ma kuwan Soomaaliya shirka madashay leeyihiin oo national oo dowladda waxay isku yeelanaa madaxweynuhu waxa uu yeelay shir wada tashi qaran aduu madaxweynaha intii aad matalan ma saragtaano wada tashi iyo madaxweynaha ilawado madaxweynaha iyo anagu idinku waxaad ahayd
أنا بالي هاي سولي إنك هذا ذاك كأنه ديسو أنا بالي هاي سولي وحمي ما أنا ليه هاي ستاي تلا وحكوري كونتاكت من اللي دي هنا وما على كل حال مكان مغنين ما كلام مقنن ما كلام مقنن way Faisal imika dad badan oo ila dhageysanaya markay ku arkaan adiga inkastoo maanta inta wax wareysanaya aan arko adigoo sharaaradaadu ka asal tahay in badan ma ku arkay laakiin talooyin fara badan oo waxa lagu yaqaanay qof matalan si imika Maxamed Xubeen laakiin waxa had iyo jeer waxa laga filayaa nin national Somaliland difaaca oo dhinta ilaa kiyo siyaasadda markuu soo galay ku bilaabay wada heshiisiintii oo halkaa ilaa Abubakar iskaga daba qaadayay intii dambe markasta oo xaaladdu ay adkaato compromise-ka maanta waxaan joognaa meel wanaagsan u dheeda oo adiguna adintaas imika khibradaadii yeelatay oo tahay marka bal talooyin wada loo objective ah oo bal maxaad talooyinaha maanta lagaasha amba xagga dawladda amba xagga dadweynaha amba international community-ga sidii ad ugu horseedi lahayd matalan ictiraafkeena maanta oo aad ka mid tahay bilariska lagu tilmaamay inay matalan u taagan yihiin bal hadda kaalinta ictiraaf raadinta kale sidee baad u aragtaa adoo aragtidaada inaynu kaga bilowno ixtiraam aan ku sheegaya أنا ما أنتو حاجة قايسينية ماشي المانتي تاجنا هاي ولي المال إنك حنت مشرته يسيدت كانوا أنا ودرين سنة والقضية أنا يحتاج درين سنة يعني إجاك على سنة واي ده واحد بالواحد إيش يكتر سوماليا أنا لا تجعلمية شاينا أنا لا تجعلمية إن الجلا أنا لا تجعلمية حتى جرب كل تجعلمية ما حد هيصح ميل لما كم مقنع واحد إيش يكتر ميل هو مقارنة إيش ده واحد نقول مقارنة ده واحد نسكون مقارنة إيه قلت واحد مش يكتب ده واحد مقارنة حوي واحد كوي حلو بهاي إن تذكين لما ذيه هذا تذكيني لما ذيه وحلو بهاي إن لا الشر سكون ما ضل وروح أنا حيستا ما حنو كيالا تدخل دار أجنبي محمد عليه السلام هي اللي تدخل على التشو ما أنت ما حسبي المتجران حسبي كودني كلمية أي اللي سكودتك كلمية أنا ماشي عليك صار كلمية هرنا وكيك هو بحين سكودتك ما كودن بيسي يعني كلمة أوديني ما أنت أصحابنا متجرتو طالما أينو هاي سنة ومدة سنة متجرتو والأركتو سلطان كسبح تونو كهرليا قاربا أوريلي وكعن هذه بدنا الصوماليين ودحدينية إلهي ما كوداني إنه هذان أمضوا مديسنا أوني كومن جروند كله هم يبوس بابي سومالي نبدي اللي مدو بابي سلحشالي سومالي بيسالون عاي مركب حلو بهاي إنه نمك بس عشنا إيه كبحنون له ووقت حبين كوتشنا ووقت إيد كي محينو يلا محينو ترى مدحوين جوجوش ليجا أصحابتي سند كل مية كلية وكل مية كلية كل مية ويرا تذكر كره فترة سياسية تاعنا ويرا اللي ويرا أنا لا الحوينه مثلا يلو وضعت إلى أنا دائما الحوين هورد يساعد هورد أنا وتركم تروحهم كل واحد له بها كل شيء ما يديك وسوق من الحوينه شو يعرف ما لك قاركود وأنا ما الحوينه شيء هذا ده محوين شوري سوري يسيين معه وحويان عدو رجوا يسيين والباقي كو قراعي أيود إسلي وحكوا شيء دون تلف يعني وانا ماشي على شرفايو وحلوقو يهرا ليش تي موقتها لكن اذا هكريو من كل هكريو ولا وحقاق هذه هكريو كل هذا يوم هي فيصل على الورابه وكمدا مثلا سياسيينتنا روغعدادغا oo had iyo jeer sharaaradiisa ay tahay mid ku xidhan oo هذه إما واحد اللي ذلك هجاجين لو دجالم جرته إما سوسن ولوين حبيه هناك حقيقة قيلسية حالته ما كان تصي السد رنت إيه جرته واي هاي أنا قال كل ده كليو فيصل وحكينا
ereygan aad tiri wuxuu keenay baraha bulshada gaar ahaan iyaka inuu shicibkooda ra'yil caamka marka la eego public opinionka waxa weeye attitude-koodii inuu mar qura samada geeyey xataa adiga ninka wasiirka arrimaha gudahoodu wax la dibadoodu inkastoo aan feerba laga hay oo aad si kulul adiga uu ku dhaleeceeyay aragtida qudheeda sideed u aragtaa waata u jawaab anigu waxay Soomaaliya ka jiraan sheegay imniyan taageeray dad badan oo Soomaaliya naga daawanaya maxaad u sheegaysaa oo aragtida si khaldan loogu tarjumo waxaan Soomaaliya waxa sheegay waxaan ku sheegayaa Soomaaliya sheegay sida waa la arkay anigu waxaan sheegay wixii ka jiray dalka muqdisho iyo al-shabaab kala marayaan ayaan sheegay laakiin ma taageerin warkii jiru ma sheegay adduunka qoriyeen oo practical su'aalaha yaabal saddex gobol ma haysan jirin waa kuna iyaga ku soo kaleeyay hubka qabsadeen iyo ciidanka qabsadeen 2 sano ku dagaalamay kara imaka waa kuna waxa ku dhufanaya ciyaalaha biyaha haysta marka anigu wixii jiraan sheegay ninkan koofiyada qaataan aqaano isagoo imaka waxaan ku tusi doonaa in goodeen la taswiiran in goodeen isagoo la taswiiran baan ku tusi doonaa isaga adduunku wuxuu yaqaanaa wala secret confidential inuu member yahay al-shabaab marka hadee marka qofka xanuujisidu iska qaylin doonaa reality-ga dadku og yahay inankiisa galay Suuriya ku dhintay wati BBC aan ka sheegay waxaas wax macna la ma aanu Faisal baan meeyay Said Ali meeyay Faisal Ali wara marka hada kuwa aqliha weydiinay kuwaasi waxaan ku leeyahay haddii aqal leeyihiin 30 sano ayay maamul ka sameeyeen ku waayeen isku xisaab maamulka u sameeysanay 30 sano ayay maamul sameeyeen ku waayeen magaalo u talay ma jirto magaalo u talay dawlad ba ka dhex sameeyay xalana la ilaabayna marka xalana galiyay madaxweynahoodu kuri waxa baara Uganda ba baara inaga meesha ka soo bixi weynay dariskeenii waajibay keenay dawlad maaha imkan adduunku arkay inay dawlad ahayn wala ciidamada Afrika waa lacagtii ma haystaan way ka baxayaan Mareykanku ku jaray marka ka jaraya dayalka baa u socda international community ya shabaab ya dayalka baa u socda marka hada wixii aanu jiro baan sheegay qayladooda dadna colhayna waa ku caayay jamar hore col baan ahayn asmaan ma leh marka eeda Soomaaliya iyo cadowga Soomaaliya kaliya baa qaaday marka cid kale reer Soomaaliya la hadashaa jirta cid kale Soomaaliya jirta oo warata shacbiga oo tira war maanta arintu halkaas ay maraysaa marka dalkan waa tan ku sheegay maalintu qabsaday ku wadani waxa uu madaxweynaha systemkeena waa madaxweyne dawladii waxa ma jirto waa madaxweynaha siyaasiyiinta lagu socda hada wad aragtay ma Trump wasiir kastaba wuxuu leeyahay mashruuca siyaasadda Trump waa aynka waxaan la fashirinay ilaa xusbiga waxa soo saaray magaalada saayay wasiiro waa systemka parliamentarianka idagayso madaxweynuhu ahayd inuu isagu wareegayso madaxweynuhu waxa ahayd inuu ilaa haddaan nahay Soomaaliland horena ulama hal jiray inuu kan dib ula hadli mayno Soomaaliya dagaalka ay qaataan la qaadan inay hadba Ali Waraabe oo xilli waqti badan la siiyay aan aad uga mahadnaqayno inuu barnaamijkeena yahay qofkii ugu horeeyay Soomaaliyeed waxa tiraa loo baalaaleeyay aniguna waliba gaar ahaan hadda Faisal ahay aan aad uga mahadnaqayo oo barnaamijka xalaqadayga la yiraahdo oo imika taliya markii wadanka la soo galay inuu yahay kii ugu horeeyay وهنا قاضي أنا جو رجعنا إن برنامج كني ما دام وفيصل مانتا TV قرن كان لغة بلاوي إن رج بدنا وكلالا سلا فيصل ومانتا وصوب بريري وأفكار تيسا أود وسوق قاضي إنه أود وسوق قاضي TV قرن كان أنا كوهم بليين إنه سلا هذه الشيء مانتا إسبدل كايو سمي فيصل وما تصنتها. ما تصنتها.